guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba iyo adiga oo fayo qaba. Dib u xasuusa dhammaan waxyaabaha aad maanta taabatay: telefoonka, fargeeto, gacanta albaabka, tuubada biyaha, musqusha. Waa laga yaabaa in istiraasho napkin aad ku diibsatay, qashinka bannaanka u qaaday, ama darjiinka aad cawska ka jartay. Wax kastoo aad maanta qabatay, jeermis ayaad taabatay. jeermiska annaga oo dhan way nagu hareeraysan yihiin. Waa wax aad u yaryar oo ma ka karno in aad xitaa indhaha ku aragno, aanan ka ahayn marka aan isticmaalno aaladda microscope-ka. Xataa haddii jeermiska uu aad u yaryahay, dhibaatooyinka aad u waaweyn ayuu sababi karaa. jeermiska jirkaaga gudihiisa ku jira waxay kaa qaadi karaan tamar, oo waxay kugu ridi karaan daal iyo jiro. Waxay kugu ridi karaan qufac ama diif, ama waxay xanuun u keeni karaan dhegahaaga ama dhuuntaada. Xitaa waxay kugu ridi karaan calool xanuun ama shuban. Dadka qaarkood ma aaminsana in jeermisku keeno cudur. Waxay aaminsan yihiin inay xanuunsadaan marka ay aadka u kulul yihiin ama ay aadka u qabow yihiin. Dadka kale waxay aaminsan yihiin inay xanuunsadaan goorta jirkooda uusan sinnayn. Xitaa waxaa jira dad kale oo yiraahda in jirada ay tahay habaar jinni ka yimid. Laakiin annagu waan ognahay jeermisku wuxuu yahay iyo halka uu ka yimaado, oo waan ognahay sida naftaada iyo qoyskaagaba aad jeermiska uga ilaalin lahayd. jeermiska gacmahaaga ayuu gaaraa goorta musqusha aad isticmaasho ama marka dhallaanka xafaayadda aad ka beddesho. Sidoo kale, jeermisku gacmahaaga ayuu wuxuu soo gaaraa goorta aad gacanta ku qabato hilib ceyriin ama ukun ceyriin ah. Sidoo kale, jeermisku hawada ayuu ku duulaa ama u soo gaaraa marka qofku uu qufaco ama hindhisoodo. Inta maalinta lagu jiro oo dhan, dadku waxay taabtaan waxyaabaha jeermis korka ka leh: boombalada ama alaabta ilmaha ku cayaaran, weelka qashinka, xayawaanka guriga lagu rabaayadaysto, dhar wasakh ah. Goorta gacmahaaga ay jeermis leeyihiin, gudaha jirkaaga waxay geli karaan marka indhahaaga aad rugto, sankaaga taabato, ama farahaaga aad afka gashato. Sidoo kale, jirkaaga waxay geli karaan goorta aad cunto cunayso ama aad cabayso cabitaan jeermis ka samaysan. Ama jirkaaga waxay geli karaan marka aad neefsato jeermis hawada ku jira. Si naftaada aad jeermiska uga ilaaliso, gacmahaaga badanaaba dhaq oo isku day in wejigaaga aadan taaban. Ka fogow dadka xanuunsan. Haddii aad u baahan tahay inaad daryeesho qof xanuunsan, gacmahaaga in badan iska dhaq oo isku day in qofka xanuunsan uusan agtaada ku hindhisoon ama ku qufacin. Dadka kale cunto ama cabitaan ha la wadaagin. Gurigaaga nadiif ha kuu ahaado oo ha lagu tallaalo wixii dhammaan tallaal ah ee lagugula taliyo. Ma jiro qof ka takhalusi kara dhammaan jeermiska adduunka oo dhan, laakiin adiga nafsadaada iyo qoyskaagaba waxaad ku badbaadin kartaa adiga oo talooyinkan raaca. Wadajir uga wada shaqaynaynaa si aan u dhisno qoysas fayo qaba iyo adiga oo fayo qaba.